الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما بعد إلهي بان مهدله إله سمد إي أردك إي وحا ودحيا با أبوري نمعدا إي إسلام نمعدا إي نسيي إله سام مهدله الحمد لله رب العالمين. marka hadda halkan waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo arrin horay u dhacday oo aniga igu dhacday oo dhibaato fara badan igu sameysay yaan doonayaa halka inaan ka soo jeediyo oo uga sheego dadka ama bini aadamkaba ama islaamkaba ah inaan halka uga sheego. marka bal dhageysta arrinta tan waxa laga yaabaa arrimo ay iyada quseeyo oo aan sidan aan idinku sheegaya aan ahayn inaad kala kulanteen oo aragteen laakiin oo beena kuwaas oo beena hadda tan aan idin sheegaya runa. waxaa jirtay aniga oo jooga magaalada la yiraahdo Dar es Salaam xaafadda la yiraahdo Kariako hotel la yiraahdo Baridi Guest aniga oo degan roomka aan seexdana number 6 buu ahaa oo aan operation cunaha ka ahay waqtiyo horena ay igaga dhaceen TB iyo caloosho laygu operation-mada xameetida la iga saaray iyo dhibaatooyinka qaba markaana operation-ka cunaha aan meesha u jiifo ba waxa igu dhibay niman shaqaale ka ahaa loojinka isaga ah ee la yiraahdo Baridi Guest oo Kariako ku yili. marka way caayeen waxay yiraahdeen xanuunkayga markay arkeen bay yiraahdeen AIDS buu qabaa caynkan uu yahay AIDS buu qabaa wax caynkaas way caayeen. ninkii meesha lahaa baan uga ashkatooday dabadeedna wuxuu yiri war odaygan deriskayga ee meesha degan faraha laga qaado sidii baan ku kala loojinka iska deganaa. subaxii dambe iyadoo ay barqadii tahay bay waxay bilaabeen inay sidii ii caayaan. taariikhdana waan idinka soo dhaafay waa 2001 weeye taariikhdu. way caayeen markaasay inta kale muraad kama gelini waxay igu yiraahdeen hooyadii warsihi kuma maakiyo Soomaaliga ma hurdaaweeyay igu yiraahdeen. aad waxaan uga xanaaqay hooyadii warsihi waan soo kacay sirwaal baan qaatay nimankii oo meel dharka lagu maydho kaaro ay dharka ku maydhayaan oo laba nina baan dagaal ku qaaday. nabar xun oo feedan ku dhuftay aad baan u yeelay ninkii caayayay la yiraahdo Shabcaan baan aad u sii garaacay. ninkii hotelka lahaado banaanka hotelka banaankiisa fadhiya way u tageen isagoo afka dhiig ka daayo. ana ismaba taagin ninkii baan u tago waxaan nimankii aan hore kaaga soo ergooday shaqaalahaaga waa kuwan way caayayaan dhibkan ay ugu sameeyeen ana dagaalkaasaan qaaday dee adiga guri meeshaadiina waan deganahay dee adiga arrinta hadda ay ku taaleen kala xalli. ninkii wuxuu yiri nimankii odaygan ma soo ashkateyn kartaan lacag buu siiyay ordo isa soo daweeya anigana wuxuu igu yiri roomkaagi ku noqo dhibka iska daa iska seexo waad xanuunsanaysaa iska naso. sida arrintii markay ahay nimankii waxay u tageen qaybaha gacanta wax ku qora ee dadka sawira yani artistiga la yiraahdo bay u tageen. meeshu dhinacna waa hotel iyo bar khamri dhinacna waa loojinka meel yaroo baw ah oo yaa u dhaxaysa bawga oo la iska arko aan dee waxba ku kala qarsoonayn. duurkii markii aan salaadii baan sii soo tuko masaajid noo dhow Alaamiin la yiraahdo yaani si ku soo tuko nimankii oo u fadhiya 2-3 miis soo jiitay oo dhowr iyo 10 u fadhiya oo qoslaya oo sheekaynaya baan soo maray meeshii waxaa la tusay sawirkaygi oo gacanta lagu sameeyay. waxaa la sawirka ma aragtaa Shabcaan nabaradiisii aad ku dhufatay wala in badan waad ka shalay in badan waad ka tiiraan yooway af Soomaaliga markaan u sheegana waxaan u arkay waxaan macna lahayn oo iska dhaafay. masaajidkii baan ku soo tukaday casarkii baan haddana isii bax sidii oo kale u wadaan casarkaasaan waxaan tagay station police Kariako
meesha la yidhaaha oo u dhow ka soo horjeeda loojinka aan joogo waxaan ugu tagay nin la yidhaaha Inspector Bombo oo meesha haystay baan u tagay waxaan ila arrintaas jirta nimankaas ay ceebaynaya sawirkayga ay qaateen waxaan ay sameynayaan marka waxaan doonayaa in nimanka la ii soo qabto oo waajibkooda la mariyo maalin axad iyo sabti anigu ma garanayo kuma dambaabi karo mid ay ahayd isbeetarku fasax buu iska baxayay labadii askari oo ugu reebayna danahooda ay qabsadeen ilaa maqribkii baan fadhiyay ashii baan fadhiyay waxba way soo raaci waayeen waan iska galay qolkaygii haddana markii aan gelayay baa waxaa laygu yidhi haddana sawirkaagii wakaa wala in badan shabcaan nabaradaad ku dhufatay waad ka shalayn doontaa wajigiisa aad ku dhufatay yeelkiisa baan isii waxaan isii meelaha ee intay dhigdhigaan bay waxay oranayaan ninkan saasu yahay iyo AIDS buu qabaa iyo waa caynka kan iyo ayda meelahaas gidaaraday dhigayaan waxa loo gudbiyayba warbaahinta loo gudbiyay STV iyo SDTV iyo casharada kale oo lagu sameeyo TV-yada lagu daawado fiidiyoyada lagu daawado iyo wax badan baa laga sameeyay halka markay joogtay oo aniyadayda anigu gashaday maxaba ka galay meelahaas ay dhigayaan waxaadan qabil muxuu ka qabanaya 3-4 maalmood markaan joogay yaa waxaan u arkay qofkii aan soo agmaraabay inuu leeyahay waa kan ninkii AIDS-ka qabay oday waa kan Hussein Indiyo wiiyo waa kan Hussein Okimi waa halkan u maraya wixii waan yaabay waa 2001 taariikhdaas waxaan isku taxallujiyay marka inaan raadiyo waxyaabaha la sameeyay sida aan u soo helo oo aan maxkamad u geeyo waan raadiyay haddana waan ka soo baxay Tansaaniya Kenya waxaan imi 2002 waxaan ugu imi iyadoo fiidiyoyadii iyo cajlado lagu daawanayo makinisada masaajidka ayd ka soo horjeeda iyadoo lagu daawanayo dad baan u diray waa la soo arkay waa la raadiyay waa la soo qaban kari waayay dagaal baa xitaa kuwa ku sameeyeen way ii suroobayday ilaa muddada waan raadinay waxaan halka in yar idin ku noqonayaa waa bil Ramadaan 7 jir baanahay waa soomanahay waxaad ogaataan hadalka aan idin sheegayo inuu sanbeenahayn run ah xagga dambana waxaan ku cadeyn doonaa waxyaabaha uu runta ku yahay ee idin xaqiijinaya dadka islaamka oo yaan idin ku soo sheegi doonaa laakiin hadda arrintii baan idin ka wada waxay noqotay shilinkii isoo galaba ilaa maalinta ilaa hadda bishii labaad sanadkan bishii labaad inaan inta lacag ku bixinay oo raadinay oo nin marbanin ilaa ana ku soo qabanaya oo aniga laftaydu intaan galay la iga saaray oo meel fiidiyo lagu daawanayo inta aan galay oo 11ka ah inaan intaan galay ajadii aan arkay oo anigi la iga saaro leemusay naga bax war waa daawanaya dadkii kale waa kan ku jira waa ma rabna baalay kuma rabna adiga markaan diidayna baalkii baa la damiyay sidaasaan kaga baxay waxaan tagay 13 station police oo aan leeyahay kiiska hal ay soo qabto waxa la igu xidhay xajlad baa leeyahay waa gartooda waa run si ay dhibayeen waxay leeyihiin ay ku tara waaweyn xitaa waxaan tagay kawtarka weyn ee booliska ee Nairobi baan tagay Kisrani baan tagay kuwa nabad sugidaan tagay meel walbaan tagay askar badan oo nin walba baan lacag siiyaan idii soo qabta xajada anaga soo qabanayna hadda nin walba lacagta intuu uu iska dhaqaaqay xaaladdu markay halka mareysay oo ay soo socotay waxaan ku xirtay dhabarkayga iyo laabtaydaba waxaan ku xirtay tolay ya muslimiinay masaajidada la geliyay
masaajidka townka jimiya moos sigistrey masaajidda kale yaan la gelay markaan tukanayna way iska saaray marka aan ka soo baxana waan xidhanay waxaan ku dhiirigelinayay dadka islaamka bal tolaayaa muslimiinay ninka weyn odayga ah bal waxa dhibaatada in la waraysto waxa la igu guday aydiskii baa waalaya waxaan ula qaylinayo la cabaadayo aydiskii baa waalaya waxa kamida filimada waxa lagu sameeynayo inaan dadka sameeynaya aniga iska dhigaya inay wadooyin ordayaan oo qaylinayaan oo bilays la socdo oo dhaqaatiiri la socoto oo haywayada wadooyinka marayaan yaa la sameeynaya qofka waxa laga dhigayaa inaan anigu hadlayo aan halka idin ku sii celceliyo qofka hadlaya waxa laga dhigayaa anigii oo hadlaya oo suuradaydii iyo garhkaygu marna xinale marna aan xinna lahayn inaan anigii hadlayo oo qofkanuba anigii yahay dadku markaa waxay u qaateen waaba kan isagii waxaan shiriyay dadka aniga tolkayga ee family-gayga oo qabiil ahaan guud ah yaan 3 goor shiriyay waxa sheegaysa ma garanayno family-gayga hoose yaan 5 goor shiriyay iyagana oo rag iyo dumar bale iyagana waxa lagu yiri qarna waxa la yiri 3 xaala la istaago qolo waxay yireen warma odaygana inuu ku sheegaynaa waa ceeboobaynaa inuu waxa sameeyay qarna waxay yireen waysaga qarna waxay yireen ma garanayno wuxuu noo sheegayaba waxay noqotay haddii aanan kitaabka ilaahay iyo masaajidka ku xidhnayn qof inta lagu sameeyay wuxuu uusan ahayn qofka oo laga sameeyay oo ehelkiisii qaraabadiisii muslimiintii sida ay sameeyeen waxay noqotay in ay aad wax yeesho aad haddaanan diinta islaamka ku xidhnayna waan waalan lahaaba halka markaan matalaad idin ka soo qaado dadka islaamka waxaan idin sheegayaa Aisha bint Abu Bakr radiyallahu anhu oo ibn Salol iyo kooxdiisii ay dambiga ku sameeyeen miyay samaysay dambiga ay yiraahdeen nin bay u hadho sinay u saadhay حاشا ما أي سمين إلهينا واكي إنت سو آيات كسود شيء إن ينسمين وحاي بريكة هاي أنا قلنا سيدي أو كلام هاي أرنتا وحان كاهي بري من يقفك إلهينا إجمالين مدة دير أي أرنتا سوس عتينا وحان دوني إن عشان دا قبطه halkii baan idin ku noqday in aan ajlada qabto oo aan maxkamadiyay ii suuroobo weey bishii labaad sanadkan bishii labaad baan faraha ka qaaday university baan tagay waxba iga qoreen bixii waa socdeen hadda 600 iyo something qof bay marayaan dadka daawado dibadda iyo gudabale haddana waxaan u soo fadhiistay meeshan warbaahinta aan hadda fadhiyo waxaan u soo fadhiistay war dadka islaamka oo waxaas inuusan aniga ahayn ee halka ka yimi oo ninka shabcaan leeyahay iyo groupkiisa aanu dagaalanay ka yimi oo arintu sidaa tahay oo Dar es Salaam ka dhacday oo baridu loojinka leeyahay baridi gasti ka dhacday oo aan seexan jiray roomka leeyahay 6 number 6 oo taariikhda ay taariikhdu ahayd oo bilays aan u tagay oo waxba la igala qaban waayay oo ka soo gudbay oo sheekadan dheer hadda Nairobi aan idin ka fasirayo aan sameeyay wax iga qabtana aan waayay sidaasaan markii labaad warbaahinta ku tagay markii hore Universal baan tagay iga duubtay haddana waxaan tagay qayb kale oo kamida warbaahinta weligayna adduunka intaan joogay sawir aan leeyahay aan passport iyo kibanda ahayn laygama qaadin warbaahinna ma tagin waxaan idin sheegayaa dadka islaamka oo qofka aad aragtay